subaxnimadii hore ee saaka waxaanu booqasho ugu tagnay iskuulka Aw Faarax Jaamac Secondary School ee ku yaala degmadani Wadaamago. Iskuulkani waxaa la aasaasay sanadii 2011. Intaas iskuulku waxa uu soo saaray anfac midho ah oo baahiyaha aasaasiga ee loo baahan yahay ka daboolay Somaliland iyo waliba gobolkaasi Saraar. Haddaba iskuulkani waxa uu u baahan yahay taakuleen dhanka waxbarashada ah iyo waliba dhaqaalaha ee jaaliyada reer Somaliland ee ka soo jeeda degmadani Wadaamago. Halkaasi waxaan ku booqanay iskuulada oo ay ku kala jiraan ardaydaasi ay u dhigayaan macallimiintoodu. ugu horeyn waxaa halkaasi aan xafiiskiisa ku booqanay maamulaha dugsigani Aw Faarax Jaamac Secondary iyo qaybo kamid ah macallimiinta ka dhiga Aw Faarax Jaamac iyo qaar kamid ah ardayda oo dareenkooda nala wadaagay. aad baan u salaamayaa Ariel TV iyo inankan wariyaha haddii mar labaad u soo noqdo xaaladda uu ku sugan yahay dugsiga iyo maxaan ku raadayay xaaladiisa dugsigu wuxuu marayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin subaxii maxaa la bilaabaa 7:45 ilaa 8 meelahaas 5 xiisadood baa sida caadiga la qaataa ardaydu way dadaalayaan oo maxaan ku raadayay teramkii koowaad baa soo dhow إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن نقول في عنك قارنو والله كل محان كلا منهج كي كرو كلام كي أنا أرضي هيسن فمون كي عصبة سنة كي ما بوكتي هيسن آد بنو يجو تبينا يد الصباط كي كله وسارد دو محان كلا يجانا نوبا هنا كسر نلا شغل سو سارد دا يوم محان كلا ريتشن كلا بعض با دوكسيا آد ياد بنو وفي عنها هاي حال الدوكسي وفي عنها هاي برواقة الوجرة ودك ونبعيسين هاي shaqada dugsiga ee xamso way fiicanta ilaa hadda intii aan anagu nimi ka macallimiin ahaan iyo ka maamul ahaan shaqada iskuulku si fiican bay u socotaa haday tahay xiisadaha haday tahay tayeynta ardayda haday tahay time-ka dugsiga waxa weeye laga dhigay time marka waxa weeye hagaagsan in ardaydu waqti fiican wax isto iskuulkan halkan waxa soo gaarsiiyay dadka qurba joogta ee deegaanka u dhashay external support ama caawimo guud bay iskuulka taageeri jireen waxay ka taageeri jireen dhinaca financialka iyo dhinacyo fara badan waxa ugu wanaagsan markaa dhinaca financialka ugu badnaa oo dhaqaale ay iskuulka ku kabi jireen iskuulada la midka waxa weeye Somaliland ka jira markaa waxa weeye outside schoolska ah iskuulada ka baxsan magaalooyinka waaweyn inta faraha badan waxa gacanta ku haya dadka deegaanadaas waxaanu markaa waxa weeye tabnay oo aan u baahanahay in taageeradii noocaas ahayd ee dadka qurba joogta ay ka taageeri jireen iskuulka inaanu helo si iskuulku waxa weeye waxyaabo fara badan oo uu baahan yahay uu gaadho waxa kamid ah dhaqaale waqti hore ay ka heli jirtay iskuulku ka heli jiray jaaliyada dibadda oo aan iminka aan supportigi ay iskuulka siin jireen aan helin iminka marka ayagana waxaan u sheegayaa in iskuulku uu baahan yahay taageerada ay siin jireen oo aanay ka jarin ay sidoodii ugu sii wadaan kulay wax badan de support fara badan baan ku helaa macallimiintana marka iskuulka waxbarashadiisa ama qaab socodkiisu aad buu wanaagsan yahay magacaygu waa Nasra Xasan Axmed waxaan ahay galaaska form 3 waxaan dhigtaa iskuulka secondary Aw Faarax Jaamac iskuulkan in badan la form 3 waan soo dhiganay waa iskuul aad waxbarasho fiican leh macallimiin aad wax u barta ardaydana leh xamse maxamed muuse cawke Ariel TV degmadan qadiimiga ee Wadaamago.